marka hore Soomaaliya Allah mahadle marka xigtana waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta ay tahay bishii 9aad 2020 waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo shalay media ka arkay golaha wakiilada oo ka doodaya doorashada sidii loo qaban lahaa marka laba qodob baa igu muhiimsanaa markaan eegay kuleelkaana waxaan ka arkay iyagoo dad sharci yaqaan ayna joogin oo isjiidanayay oo qofku markuu qodobka uu ka hadlayo sharciyeysan mid kale oo garanaynin ka daba hadlayo ku qayliyay marka taasina waxaan u aragnaa kullay wax sharciga ka baxsan waxaan meesha ku arkay laba qodob labada qodob oo ah mid qofka isku soo sharaxaya golaha deegaanka waxa lagu xidhay 2300 qofka isku soo sharaxaya golaha wakiiladana waxa lagu xidhay $7,000 taasi waxay noola eeg tahay in wax kastaba baraafataasi laga dhigayo company laga dhigayo oo lagu lacageysanayo markaanu taariikhda eegnayna waa gumaysi oo waxa maanta wax laga dhigayaa ninka lacagta haysta ninkii aqoonta lahaana waxba looma ogolo inuu qabto oo waxa kaaga cad lacagta lagu xidhay dad waxa jira lacagta inta leeg haysan laakiin aqoon leh ka aqoon badan ninkan caloosha weyn leh ee meesha joogay ee lacagta haystay lacagta isku soo sharaxaya inuu ka arkana meelaha media ka muuqda marka haddaba anagu dad aqoon laanu nahay dad wax og baanu nahay gumaysina maanta nooma iman haddaanu taariikhda dib inagu noqono gumaysi markuu Soomaali yimiday wuxuu kala dagaalamay inay wax samaystaan taana waxa kaaga cad marka aad eegto waddankan aan maanta joogo ninka midida sameeyo waa ninka nuclear-ka sameeyay ninka midida sameeyo waa ninka gaariga sameeyay ninka midida sameeyo waa ninka bahalkan aad igula hadlayso sameeyay marka dadkii aqoonta inta leeg lahaa iyaynu yasnay marka waxaynu nahay dad wax soo saarkooda la dagaalamaya oo aan ogeyn oo gumaystuhu kolba dhinac u soo marayo kolba dhinac u ka isticmaalayo haddaba haddii shalay la dilay ninka farsamada yaqaana oo la yidhi bakti baad cuntay waxaanu ognahay hadduu baktiga cunay meynantiisaa cuntay hadduu ninkani baktiga cunay ma wiilkiisaa cunay marka waa propagandada Soomaaliga gumaysiga Soomaaliga oo iisiga ugu dhiibi karo oo u fidinayo marka haddaba anagu dad aqoon u laanu nahay waxaad samaynaysaan dad aqoon u laanu nahay waxaad wadaan marka waxaanu leenahay aqligu ha shaqeeyo dad aqli la ma tihiin dad aqliga u saaxiiba ma tihiin waxaad wadaanuun iyagoo labadii xildhibaanadu darafku inaga maqan yahay la jiifiyana bannaan la joojiyana bannaan aqligu ha shaqeeyaan leenahay aqligu ha shaqeeyo doorashadana inta dadka cilmiga leh iyo aqliga u saaxiibkii la og yihiin maaha inuu nin calool weyn oo lacag walqinayo oo dadka tusaya inuu meesha soo galo nin aqliga u saaxiiba meesha soo gala golaha wakiilada golaha deegaankana nin aqli u saaxiiba soo gala marka lacag lagu xidhayaa ma jirto aqli baa lagu xidhayaa dugsi sarena waa lagu xidhayaa waa intaa midda kalena waan idin sheegaya doorashada sida loo qabanayo عقلي نقوم جيرانو مالين يا
ninka boorama ka yimid waa magaalo wakiina kaahin ba sheegay waa in Itoobiya ka soo galo xuduudda agmarta ninka gabilay degan waa in xarshin ka yimid xuduudda farteeda gaadha oo 22 xildhibaan boo register gareysay inuu aan ognahay ilaa ka boorama Hargeysana waaba magaalada jigjiga ka timiday ee ka soo guurtay ee ilaa inta regionka ka soo guurtay la yaqaano ee caddahay dabraan waa sayladii xoolaha marka haddii wax la dooranayo doorasho la galayo xuduudaha waa la kaliin gareynaya nin kasta deegaankiisii ku noqonaya golo deegaan saasa loo dooranaya sidan kaleed wada waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan marka annagu ma aqbalno dad aqli iyo cilmiga u saaxiibaanu nahay ma aqbalno kaana aqbali mayno cirka hadduu roob da'ayo dhulkana sidaan hore iniigu sheegay annagu intaan leenahay waraaqaha waanu ka saxaanay markii gaalka 1848 markii Afrika la qaybtamayay waanu ka saxaanay intaanu golaha deegaanka ka soo baxno si fiican baanu naqaanaa cidna noo sheegi mayso haddaad Ingiriis u tagtaan way inii sheegi haddaad Ottomanka u tagtaan way inii sheegi intuba way inii sheegi marka doorashana ilaa aanu annagu ka nimaadno oonu u tashano dhulkayaga ilaahayna siiyay ilaahay nagu beeray ka dhici mayso waxa aad wadataan iska sii wata xildhibaanada meesha fadhiyowna wallahi kamaradu wayni wada haysabaan u maleynaya deegaankaad ka timaadeenna uu noo wada qoran yahay ama boorama deganow ama gabilay deganow ama hargeysa deganow ama burca deganow Soomaaliland waan isnaqaanaa marka waxaanu aaminsanahay annagu Soomaali ma kala go'do ilaahay Soomaali ma kala gooyo ilaahu Soomaali isku keen ilaahu Soomaali ma taqaana khayrkeeda ka shaqee ilaahay waa noo baryanaa wixii kala gooynayna ilaahu naga qabaan leenahay Soomaalida ilaahu naga qabaan leenahay waan salaam ya Soomaali meel kasta joogtaan assalaamu calaykum